barnaamijkeenii aqoon wadaag maanta waxaan ku soo qaadan doonaa oo halkan ka akhrin doonaa muqdisho qarnigii 13aad sidii ahaan jirtay habdhaqankeeda maamulkeeda ilbaxnimadeeda xadaaradeeda barwaaqadeeda qarnigii 13aad and I'm going to read and basically translate in Somali and the book of Ibn Battuta, and who traveled around the world, what was called the Old World, and through Somalia and in the 13th centuries. I will translate it and read it in English and as best as I can, translating in Somali as best as I can. And the reason I'm translating in Somali, this I'm recording for Somali consumptions. So basically people who cannot read it in English. And so that is the reason I'm going to read it in translating Somali. And so from now on, I'm going to carry on talking in Somali and a bit of English. barnaamijka aan soo jeedinayo qarnigii 13aad ee Muqdisho waxaan akhrin doonaa book uu qoray Ibn Battuta oo ahaa nin caana muslim caana oo dawaafaya adduunyada qarnigii 13aad qarniga 13aad waxa weyn waa qarnigii magaca Soomaali macluumu jirin dadka Soomaalida Soomaali ahaan looma garin looma aqoonsan magac kale loo yaqaanay oo halkan ku cadeyn doono oo aad arki doontiin baba qoraalkiisa muqdishona taariikhdeeda nooga warrami doono waxaan doonaa markhaatiga koobaad ee muqdisho iyo xadaaradda Soomaalida waqtigaasi dadka Soomaalida imika la yiraahdo wuxuu qoraalku aba akhristu ahaan doonaa ka hadli doonaa oo waxaan doonaa isku dul taago iga tanna igu kalifay inaan af Soomaali ku soo akhriyo ujeedada u soo jeedinayo waa Soomaalida dadkana af Ingiriiska akhrisan inay buugii aan hordhigo af Ingiriis intaan karayo ka akhriyo ugu turjuma af Soomaali iyaguna ay bartaan amba xogtii dhabta ay arkaan ay helaan ka doonana ay sii tabiyaan amba carruurtooda u tabiyaan amba dadka xaafadooda la jooga amba sheekooyinkoodaba ku soo darsadaan wuxuu ka hadli doonaa factual information waxyaabo xaqiiqa waa qoraaladii ugu horreeyay ee Soomaali lagu qoro dadka geeska Soomaaliya kuwii ugu horreeyay si waadixa loogu qoro iyo nin ka qoray Ibn Battuta aan ahayn nin dan ka lahayn Soomaaliya ujeedo nin carbeed oo ujeedo carbeed u yimid maynu ahayn mu ahayn nin mu ahayn ujeedo gumaysi oo gaal iyo Ingiriis iyo Talyaani ahaa amba Jarmal ahaa oo u yimid amba Faransiis oo u yimid ujeedo gumaysi mu ahayn ujeedo dagaal mu iman marka independent witness waxa waa nin madax bannaan waa markhaati madax bannaan qoraalku ka qoray Muqdisho sidaan u akhrino waxa weyn waa sida xaqiiqda ah u dhow maaheba 99% haduun isagu wax iloobin u dhow ma aha nin wanaajinayo Soomaalida oo nin Soomaali amba qoray oo Soomaalida isxijinaya maaha maana ahana nin xumaan amba u yimid inuu Soomaalida ku muquriyo xadaaradiisa amba gumaysihan u yimaado oo Soomaalida siduu isagu arkay uu siduu doonayo oo hoos dhig ku sameeya mu ahayn marka labada dhinac ma ahayn nin wanaajinayo na qurxinayo ma ahayn nin xumeynayna ma ahayn nin dhaxdhaxaada marka waxaan akhrinayno wuxuu ahaan doonaa xaqiiqada iyo marka ku salaysmi doonta Ibn Battuta ayuu ahaa Ibn Battuta wuxuu ahaa nin Muslim beer Moroccan ku dhashay magaalo xeebeedka Tangier la yiraahdo u dhaxaysa xuduudda Spain iyo Morocco
marka qaaradda Africa iyo Andalusia meeshii la oran jiray Spain imika la yiraahdo Peninsula Spanish Peninsula Iberia Peninsula halkaas ku dhashay wuxuu ahaa asal ahaan wuxuu ahaa Carab mu ahayn European mu ahayn wuxuu ahaa Berber dadka asaliyan degan waqooyiga Africa sida Morocco Tunisia Algeria Libya Masar dadkii deganaa Berberka la oran jiray dadka Berberka la yiraahdo dhiig ahaanana DNA ahaanana aan isxigno sida Suudaaniinta Oromada Anfarta iyo annagu aan isxigno oo ka duwan dhiig ahaan iyo dad ahaan ka duwan Carbo amba Uthmaniyiinta ka duwan Turkishta ka duwan Yurubada kale Ibn Battuta kaasu ahaa wuxuu maray wax la yiraahdo old world adduunihii duuga ahaa amba gabowga adduunihii hore ka dhigantay adduunihii hore maxay tahay waxay ahayd xadaaradu intay ka jirtay min Spain ilaa Shiinaha waa dhulka wax laga qori jiray amba diintu gaadhay amba xadaaradu gaadhay kumayni jirin waqtigaasi Europe tan imika naqaane North Europe Scandinavia iyo Jarmaladu ma ahayn dad staa marka waqtigaas soo baxay macallin Ingiriisku South America North America na xiriir adduunaha kala lama lahayn oo wali xiriir mu bilaamin Afrikada hoose South Saharan Afrikada hoose madmadowna xiriir badan adduunka lama lahayn waxa laga reebay inta sare Mali Sudan iyo dhulkan ardo xabashka iyo dhulka dadka mooyaane ana dadkii hoose hada la lahayn xiriir Australia hadalkeeda dab laakiin waa inta u dhaxaysa Shiinaha ilaa iyo Spain Indonesia halkaas la oran jiray old world adduunihii hore intaas uu isku soo maray Ibn Battuta iyo qaybta Soomaalida iyo Sawaaxiliga 30 sano ayuu socday buugana 30 sano su'aalaadkiisii buu ku soo qoray sidaas weyn ninkaas weyn Ibn Battuta halkuu maray wakaasi kay halkaas sare waa meesha ku dhashay Tangier halkaas ku dhashay Fez waa caasimadda berigaas waqtigaasi ahayd caasimadda boqortooyada halkan ka jirtay wuxuu maray meesha inta casna uu maray dhowr rixlo wax la yiraahdo uu sameeyay rixlada iyadana ku muhiimaddu waxa weeyaan waa ta halkan uu ka imanayo Xijaaz buu ka imanaya wuxuu ka imanaya halkan wuxuu ka imanaya dhinacan Dooxa iyo ka sareysa qatar elifkeedu ka iman doona Xijaaz buu tagi doona Makiya Madiina Jidda Yaman buu soo mari doona Sanca Hadan Zaylac Muqdisho waa waqtigan la sheegayna waa magaalooyinka jiray Zaylac iyo Muqdisho magaalooyinka nimka cusub dadku yaqaanaan Hargeysa iyo Djibouti iyo Boorami waa wax ka fircaamay Zaylac oo Ingiriis amba waxa sameeyay Ingiriis amba Faransiis bas sameeyay magaalooyinka kale laakiin Zaylac qarnigii 13aad way jirtay berberina waqtiga ma jiro berber Uthmaniinta markii dhisi doona Hararna may jiri jirin waxa markaa Zaylac qarniga 13aad halkaas mari doona Muqdisho iman doona Mombasa tagi doona Zanzibar Kilwa meel la yiraahdo oo imika Tanzanian ku taala dib uu noqon doona wuxuu tagi doona Oman imika wax la yiraahdo Oman dhulka Oman ku tagi doona saas uu mari doona tan dib uu soo noqon doona halkaas ka mari doona waaya marka annaku muhiimadeedu waxa weyn war intuu halkan mariyay Zaylac ilaa iyo Muqdisho wuxuu ka qoray xaqiiqduna waa taasi halkaasaan cashar ka qaadan doona islu taagi doona waxna ka baran doona sidoo ah dhaqankeenu dadkeenu sidoo ahaa qarniga 13aad inta aanan la fasakhin aanay ay macal la doorin jinsiyadoodii dadnimadoodii ay dadka Carbaha ee bariga marka abaaruhu amba dhibaatadu ka soo iriday dhulka Carbaha yimid Soomaalida aynay doorin diintii haysanay islaamkaan haysanay dhaqankii haysanay intuu bal ka qoray Ibn Battuta ayaan iska taagi doona wax ka baran doona sida Soomaalidu ahayd intayna gaaladu noo imanayo iyo dadka kale
markii dambena gaalada noo iman doona talyaaniga faransiiska ingiriiska waxaasi ayna qarqin doonaan dhaqankii wax ka bedeli doonaan laakiin hadda waa qoraalkii qarnigii 13aad 700 sano horteed wixii laga qoray okay waa kan buuga waxaan hoosta descriptionka ayaan kusoo dhigi doonaa buugii oo dhan waad ka daadajisan kartiin qofka ingiriiska akhrinaya buugga dhan halkaas ka akhrista basically I'm trying to say people who are able to read English and I will put in the description of this video in YouTube and a link of the whole book. You could download it and basically read it at your own leisure when you can. But I'm reading this and for the sake of those Somali that cannot read English. marka dadka doonaya Englishkana halka ka degsadaan meesha descriptionka halkaas aan soo dhigi doonaa iyadii meesha laga heliyo okay waa kan halkan baa ka bilaabi doonaa markuu cadan ka imanayo cadan buu ka imanaya wuxuu oranayaa I traveled from the city of Aden by sea for 4 days and arrived at the city of Zela, the city of the Barbara, who are a people of the Negroes. wuxuu yiri waxaan ka tegay waxaan ka soo anbabaxay cadan waxaan soo socday 4 cisho Zela baan soo gaaray the city Zela the city waxa weyn waa magaaladii of the Barbara kelmadaasi xajiya waad marka ugu horeysa waxyaaba xajinaysiin waa inay tilmaami doonaa kelmadda xajiya the city of the Barbara biru waa magaaladii dadka barbaraawinta deganaayeen maxaa lagu macneeyay what is Barbara dadka Barbara maxaa lagu macneeyay was included waxa weyn in the term of Barbara the Arabic geographer apparently mean the Hamitic tribes wuxuu looga jeedaa buu yiri Hamitiga dadka Hamka waa ku shitiska Semitic waxa weyn waa xabashada iyo Yamaniinta waxaasi iyo arbaha kale Semitic Hamitic waa dadka Hamitiga Cushitic imka la yiraahdo ku abtirsada waa neither Abyssinian xabash ana ahayn dadka xabasha degan ardul xabasha ana ahayn dadka ardul xabasha degan marka waxa looga jeeda ana ahayn dadka Cushitiska amba Hamitiga degan ardul xabash sida la oran karo Anfarta amba Oromada la oranay dadka ana ahayn nor Negroes amba ahayn dadka madowga Sinjiga loo yaqaano ee Suudaan raalli ahaada Kenya iyo dhinaca Kenya hoose iyo Tanzania dadka degan iyo madowga kale Sinj ay u bixiyeen and more especially the Somali waa dadka imka loo yaqaano Soomaalida waxa weyn dadkaas Barbara la yiraahdo marka magacii berigaasi dadka jinsiyadooda la oran jiray Barbara wuxuu yiri the city of the Barbara magaaladii reer Barbara dadka barbarooyinka degan who are oo ah people of the Negroes dad madowga Negroes waa Negroes waa madowga dadka Afrikaanka waa dad Afrikaana Shafi'i in rights dhaqankoodu waa Shafi'iin oo mahalka Shafi'i their country is a desert extending for 2 months journey beginning at Zela and ending at Mogadishu wadankoodu dadkaasi barbarinta yiraahdo wuxuu ka bilaabmaa Zela wuxuuna ku dhamaadaa Muqdisho oo dhul loo soconayo 2 bilood loo kala dhex soconayo wuxuuna ka bilaabmaa Zela wuxuu kuna dhamaadaa Muqdisho oo intay Muqdisho xukunto oo dhulka Muqdisho iyo wixii ka hooseeya halkaas iyo dhulkoodu yahay xaqiiqada 700 sano horteedna waa in town Muqdisho waxay xukuntay ilaa iyo Mombasa inta la gaarin waa dhulkii Soomaalida ilaa iyo Zeylac Djibouti wixii ka dambeeya waa Anfar halkaas ka banaata Soomaalidu waa xaqiiqo dhaqankoodu waa Shaafici their cattle are camels and they also have sheep which are famed for their fat waxay dhaqdaanana geel iyo ari loo yaqaano ay ku caan yihiin ari naaxsan oo burburan the inhabitants of Zeylac are black of color dadka reer Zeylac waa dad madow jidhkoodu
and the majority of them are Rafidis. intooda u badanna majorityguna waa Rafidi. waxa weeyaan caqiidadoodu waa dadkii Nebi Maxamed iyo reerkiisa iyo u hiiliyey, oo qaybta waxay ahaayeen dadka ahlu beytka caqiid ahaan iyo raacsan, kana soo horjeeda dadka la yidhaahdo mucaawiyiinta iyo Yaziid iyo kooxahaasi la dagaaltamay ahlu beytka la dagaaltamay waa Rafidi. laakiin dhaqan ahaanana madhabka shaaficiga haystaan. wakaa Soomaalidu xaqiiqada dadka Soomaalidu waxay ahaayeen. It is a large city with a bazaar, with a great bazaar. waa magaalo weyn buu yiri Zeylac oo suuq weyn leh. But it is the dirtiest, most disagreeable and most stinky town in the world. laakiin buu yiri waa magaalada ugu uskaksan gudaafad ahaan ugu la jeclaysi yar yahay, most disagreeable ana laga helin, and the most stinky ta ugu qarmoon ee ugu ur badan adduunka intuu soo maro dhan magaalada Zeylac. The reason of its stench is the quantity of its fish and the blood of the camels that they slaughter in the streets. When we arrived there, we choose to spend the night at the sea in spite of its extreme roughness rather than pass a night in the town because of its filth. wuxuu yidhi sababta ay magaaladu u qarmoon tahay ayna una uskaksan tahay gudaafo tahay waxa weeyaan waa cadadka geela iyo lagu qalo dhiigooda iyo uuskooda iyo kalluunka malayga suuqooda iyo dariiqyadooda lagu qalo qarmoonka awadeed iyo annaka nagu qasbtay inaaba seexano magaalada seexan weyno oo markabkeeda dushiisa aan dul seexano badda dusheeda. taasaan nagu inkastoo badduna ay kacsanayd haddana qasab bay nagu watay in ma fadhi magaalada ma joogi karin. We sailed, waan ka baxnay buu magaalada muuba sii nagaadinba isagoo Ibn Battuta intaasuu ka qoray magaalada. dadkiina waa ka sheegay dadka Soomaalida amba dadka Barbara loo yaqaanay inay caqiid ahaan mahdab ahaan shaaficiyiin ahaayeen, caqiida ahaan ahaayeen ahlu beytka u hiiliyey iyo Nebi Maxamed u hiiliyey inay ahaayeen oo ay ku daba faylayeen amba ay ahlu beytka ahaayeen. We sailed from there for 50 nights and came to Mogadishu. wuxuu yidhi waan ka baxnay halkaas magaalada, waxaan sii soconnay ilaa iyo Muqdishoan tagnay 15 cisho 15 habeen iyo naga qaadatay min Zeylac ilaa Muqdisho, which is a town of enormous size. tanna wuu sheegay magaalo weyn, muu oran waa big, muu oran way weynta, muu aad bay baaxadeedu weyntay. waa magaalooyinka kale adduunka uu soo maray markuu dee garab dhigo magaalooyinka adduunka uu soo maray ee Cuthmaaniyiintu haysteen ilaa iyo Hindidii dhulku soo maray ilaa iyo Farsiyiintii meesha dhulka Iran, Morocco, Yamaniinta markuu soo magaalo Muqdisho aad u weyneed, enormous, which is a town of enormous size. Its inhabitants are mentioned possessed of vast resources. They own large number of camels, of which they slaughter hundreds every day, and also have quantity of sheep. In this place are manufactured the woven fabrics called after it. wuxuu yiri dadka magaalada degan Muqdisho waa qarniga 13aad waa dad qaniya, aad possessed of vast resources, qani aad haysta, wax kasta haysta. They own, waxay leeyihiin oo hantiya badankoodu large number of camels, geel badan ooy boqolkiiba ayaantiiba boqolaal ay ku qalaan sida for food ay cunto uga dhigtaan, waxayna haystaan ari badan. In this place, dhulkan Muqdisho uu leeyahay waxaa lagu sameeyaa dharka loo yaqaano woven fabrics called after it, loo magacaabo magacooga, loo bixiyey magacooga Muqdishaawi. nacam magaca Muqdisho dharka loo yaqaano. taasina waxay markhaati ka tahay hadda imika dharka Muqdisho banaadir baa la yidhahdaa dharka lagu sameeyo dhulkaasi amba marka lagu sameeyo Muqdisho. waqtigaana qarnigii 13aadna caan bay ku ahaayeen. Okay, dharka muxuu ka sheegay called after it, which are unequaled and exported from it to Egypt and elsewhere.
which are inequal wax lamida adduunkaytu soo maray dharkaasi nacam quruxdooda iyo qiimahooga iyo sida looga qadariyo adduunka wax la dhigma adduunka ma jiro dharkaasi unexportedna waxaana loo iibgeeyaa Masar iyo adduunyada inta kale dharkaasi. It is the custom of the people of this town that when a vessel reaches the anchorage, the sumbuks, which are small boats, come out of it. In each sumbuk, there are a number of young men of the town, each one of whom bring a covered platter containing food and present it to one of the merchants of the ship, saying, "This is my guest," and each of the other does the same. wuxuu yiri dhaqanka magaalada waxa markuu markabku ku soo dhawaado Mogadisho uu ku soo dhawaado it is the custom waxa weyn caadada dadku inay doonyo yar Mogadisho ka tagaan markabka hoos tagaan oo qof kastaba nin kastaba oo dooni kastaba waxay sidaa cunto ayay sidaa cunno ay siinayso ay ugu hadiyad uga dhigayso qof kasta oo baac mushtara oo alaab doonaya inuu shixnad kala wadaarsado ayay nin kastaba hor dhigayaan cuntada ku marti Suuriya qofkaasi marka hadduu ka qaato qofkaas uu oranaya waxaad ii tahay aniga martideeda Muqdisho ku tahay marka doontaa yar qofka reer Muqdisho soo raacay dhalinyartaasi ayuu qofka baac mushtarkii alaabta wada qof kasta oo markabka saaran nin kastaba ikhtiyaarkiisa nin buu marti u noqonaya waa hab dhaqanka. The merchant on disembarking goes only to the house of his host among the young men, except those of them who have made frequent journey to the towns and have gained some acquaintances with its inhabitant. These lodge where they please. When he takes up residency with his host, the latter sells his goods for him and buys for him. wuxuu yiri dadkaasi markay marti u noqdaan ninka qofkaasi shixnada wada qof kasto shixnada markuu qof uu noqdo marti gurigaas uu ku degaya Muqdisho marka waa dadka Muqdisho ku cusub ee Muqdisho hore u arag ee alaab shixnad wada amba doonaya in Muqdisho wax ka gataan adduunka Masar Iraaniyiinta amba Cuthmaaniyiinta amba Hindida u geynaya amba alaabu wada amba alaabu Muqdisho ka qaadana qofkaasi wuxuu marti u noqdaa guriga qofkaasi uu marti u yahay markaasi dhaqankuna waxa weyn qofka buu ka iibin karaa amba wax ka iibsan karaa qofkaas buu noqonaya wax imika uu naqaano dilaalka magaalada amba qof horjooga. And if anyone buy anything from him at too low a price or sell to him in the absence of his host, that sale is held invalid by them. This practice is profitable for them. hadduu dhacdo wilma qofka hadduu qof kale yimaado ninka martida loo yahay ninka Muqdisho hadduu yimaado oo ninkaasi baac mushtarkaasi wax ka gado oo ka siiya qiimo ka hooseeya ninka martida loo yahay amba wax ka gado amba wax ka iibiyo amba ka iibsado isagiyo ninkaasi una joogin marxaati ahayn heshiiskaasi amba iswadaarsigaasi waxa weyn waa invalid waa wax kama jiraan Muqdisho dhexdeeda taasina waxay xoojinaysaa yiri profitable waxay macaash u tahay dadka reer Muqdisho marka ninkii martida bay nin kasta marka wixiisii uu marti u ahaa loo daba marin dadka reer Muqdisho bay ku nagaadaya amba dealkaasi amba iswadaarsigaasi ku faa'iidaya waa sidaas hab dhaqanka Muqdisho xeerka ka yaal waqtigaas. When the young man came on board the vessel in which I was one of them, one of them came up to me. My companion said to him, "This man is not a merchant, but a doctor of the law." Whereupon he called out to his friends and said to them, "This is the guest of the Qadi." There was among them one of the Qadi's men
who informed him of this, and he came down to the beach with a number of students and sent one of them to me. markii inamadaasi dhalinyartaasi doonyaha yar wata markabka dul yimaadeen ani doonayaan inay ila mucaalmooladaan mid baa ka yiri war ninkan ma aha nin shixnad wada amba baacmishtar ma aha ninkan waxa weyn doctor of the law waa dhakhtar amba nin ku xeel tegay sharciga wax sharci la sharci diineed iyo sharci maadaba doctor of the law markaasuu ninkii dheerta ka yiri nin kale uu tilmaamay wuxuu yiri ninkan wuxuu noqonayaa marti baacmishtarka iyo dadka baacmishtarka marna guryaha baacmishtarka marti kuma noqonin ninkan qaadiga iyo marti u yahay sida awadeedna qaadiga dhalinyartii ka socotay iyo ii yeedhay waan raacay I then disembarked with my companion and saluted him and his party. He said to me, in the name of God, let us go to salute the sheikh. And who is the sheikh? I said, markaan doontii kasoo dhaadhacay doontii yara lagu soo qaaday muqdisho aan yimid aan qaadigii la kulmay wuxuu iga yiri qaadigii magaca ilaahay waxaan u tegaynaa bismillah waxaan u tegaynaa magaca ilaahay waxaan u tegaynaa sheekheena u tegaynaa waxaan ka amnabtuta markaa oranay sheekhu waayo sheekhu wuxuu igu jawaabay he answered the sultan for he is their custom to call the sultan the sheikh. Then I said to him, when I lodge, I shall go to him. But he said to me, it is the custom that whenever there comes a jurist or a sharif or a man of religion, he must first see the sultan before taking a lodge. So I went with him to the sultan as they asked. war sheekhana sheegisin waa ay abnubsita ornimata sheekhu wuxuu yiri waa sultaanka muqdisho haysta waa ninka waa boqorka amba de waxa boqorka loo dhaho madaxweynaha suldaanka carbuhu waxa uu yaqaanaan suldaanu yaqaanaan carbuhu markuu awood yeesho wuxuu isku yaqaana boqor laakiin Soomaaliya dhaqankeedu iyo hab dhaqankii muqdisho ka jiray suldaan lama oranayo ninku isla weynista ma laha waa sheekh u yaqaanaan waayahay waxa weeyaan buu ka yiri marka qaadigu waa nakayada waxa noo dhaqana markuu marka muqdisho yimaado dadka sharifiinta amba dadka xaakimiinta maxkamadaha xaakima ku cilmi amba dadka diinta ahlu diiniga waxay marti u noqdaan suldaanka sheekha iyo marti u noqdaan sida awoodda ibn Battuta wuxuu yiri I went with him qaadigi masraacnay to the sultan sida ii weydiisteen ba halkii suldaanka tagay account of the sultan of Mogadishu hadda waxay naga waramayaa buu maaha suldaanka Mogadishu ay naga waramayaa the sultan of Mogadishu is as we have mentioned called only by the title of the sheikh. His name is Abu Bakr, son of Sheikh Umar. wuxuu yiri suldaanka Mogadishu sida horeba inagu sheegnay title-kiisu amba magaciisu amba waxa loo yaqaano waxa weyn waa sheikh magaciisu waxa weyn Abu Bakr Sheikh Abu Bakr Sheikh Umar waa inakii Umar Sheikh Abu Bakr Sheikh Umar marka Umar markaa waqtigiisa uu isaga haysan jiray markuu dhintay Abu Bakr baa dhaxlay he is by origin of the Barbara and speaking Mogadishu wuxuu yiri suldaanku sheekhaasi Mogadisho waxa weeyaan asal ahaan of the people of origin of the Barbara waa dadka Barbara loo yaqaano dadkii Zayla dadkii uu ku sheegay dadka Barbaraawinta uu yiri mogta waa dadka ilaa iyo degan dhulkooda ka bilaabma Zayla kuna dhama dhulka ilaa iyo Mogadisho waa markaa waa Soomaali waa dadkii Soomaalida ma ku naqaano wuxuu yiri asalkiisu Abu Bakr waa Somali Barbara and speaking Mogadishu wuxuuna ku hadlaa luqadiisa hooyo waa af Mogadishu ma af Carbeed waa af Mogadishu waa af Somali magaca Somali ma jiro waqtigaasi dadka Barbara afkooda ku hadlaya af Somali waa Somali asalaan luqada Somali ku hadla but knows the Arabics wuuna yaqaanaa buu ma luqada af Carabigana uu yaqaanaa sida anagu uu naqaano luqadaha kale imika. One of his custom is that when a vessel arrives
the Sultan's support goes out to it, and inquiries are made as to the ship, whence it has come, who is its owner, and is Reuben, that is the captain, what is the cargo, and who has come in it of mention on others. When all this information has been collected, it is presented to the Sultan, and if there is any person of such quality that the Sultan should assign a lodging to him as his guest, he does. wuxuu yiri habdhaqanka jira maamulka ka jira waxa weeyaan markuu markab weyn markab shixnad sida baacmishta sida muqdisho ku soo dhawaado suldaanka doonyihiisa yar dadka dee baacmishta sameynayna way tagaan iguna waa ka heshiiska la soo samaysanayaan dadka shixnadaha wada suldaanka doonihiisa yarna way tagaan markaasay qoraal ka soo tabiyaan qoraal bay ka soo qaadaan qoraalkaasi waxaa la eegaa waa sida imika loo sameeyo haddaad leedahay dowladuhu si imika u dhaqmaan marka ay wax soo galaan sida wax loo check lagu sameeyo loo xaqiijiyo so wuxuu yidhi markabkaasi doonyaha yar baa tegaya uu suldaanku leeyahay doonta marka waxaa laga soo qaadayaa xogta waxaa lasoo sameynayaa markabku xalkuu ka yimid markabku xalkuu ku socdaa markabka kabtankiisu ninka ka mas-uulka wacayo shixnada saaran maxay tahay dadka ku jira babaac mushtar baa mise dad kala raacsan oo muhiimad leh sida diplomatic dad marti oo amba sheekh hadduu yahay amba hadduu yahay doctor hadduu yahay oo sharciga iyo sharci yaqaan amba hadduu yahay dad ahludiina dadkaasi oo iyagu ka baxsan baac mushtar ahaan ka baxsan wixii baac mushtar ahaan iyo dad musaafir ka baxsan laakiin dadka hadday muhiimad ku jirto dadkaasina waxay u noqonayaan martida suldaanka u noqonayaan marka maraakiibtu intaas soo qoraya qasirka suldaanka lagu soo noqday maamulka muqdisho lagu soo noqday suldaanka waa loo sheegay markabkii wuxuu saaran yahay shixnadiisii iyo dad muhiimad ku jira dadka muhiimkana haddii ku jira suldaanka ayay marti u noqonayaan halkaasi sida wax loo maamulo muqdisho waayahay when I arrived with the Qadi I have mentioned he was called Ibn al-Burhan, an Egyptian by origin. At the Sultan residence, one of the serving boys came out and saluted the Qadi, who said to him, take word to the intendant office and inform the Sheikh that this man has come from the land of Hijaz. wuxuu yiri markaan anigu qaadiga aan u yimid qaadiga israacnay aan inii sheegay qaadigu muxuu yahay waxa weeyaan xeer ilaaliyaha guud waa ninka qaadigu waqtigaasi hadhowba macal quraanku noo sheegi doonaa shaqadiisu waa xeer ilaaliyaha guud waa xeerka wadanka ninka isku haya wuxuu yiri ninkaasi magaciisu ibn al-Burhan baradaa asaliyan wuxuu ka soo jeedaa Egypt originkiisu waxa weeyaan waa Masri markaa ninkaasi soo qaaday buu yiri waxaa noo yimid dhalinyartii ka socota qasriga madaxtooyada qasriga suldaanka sheekha halka suldaan ku soo qoray laakiin suldaanka markuu sheegayso waxa weeyaan muqdisho iyo Soomaalidu suldaanu ma yaqaanaan qofka xukuma wuxuu yaqaanaa sheekha qasriga madaxtooyada qasriga sheekha dhalinyar ka socota wayna salaameen markaasuu qaadigii ka yiri kelmadan gee oo xafiiska sheekha gee una sheegna ninkan inuu ka socdo Xijaaz inuu ka yimid uu soo maray dhulkii Xijaaz la oran jiray Makiya Madiina inuu ka yimid so he took the message then returned bringing a plate of which were some leaves of petal and areca nuts. He gave me 10 leaves along with a few of the nuts, the same to the Qadi, and what was left on the plates to my companions and the Qadi students. wuxuu yiri markii xogtiisa loo geeyay oo xafiiskii sheekha la tagay wuxuu inakii soo noqday isagoo sida cunto yar oo waxa weeyaan macmacaan yar wax yar oo lagu nagaado oo 10 xabo oo caleenta muuska oo loo siiyey waxyaabo macmacaan ku jiraan 10 buu siiyey qaadigana 10 buu siiyey
xeeladaha guud ee muqdisho 10 buu siiyey qaadiga wixii ka soo harana wuxuu siiyey ardadii qaadiga iyo amin batuuta baa leh dadkii la socday isaga qaybtii dadkii bugaagtii iyo alaabtii iyo isaga dee u ahaa dee kalkaaliyihiisa ayaa intii kale la siiyey okay sidaa ula soc saasaa loo soo dhawey he brought also a jug of rose water of the measure which he poured over me and over the Qadi over our hands and said, our master command that he be lodged in the student house, this being a building equipped for the entertainment of student of religions. And waxaa kaloo la socday cuntadaas iyo macmacaanka yar cunto ma ahayn laakiin macmacaan yaroo qofka dee lagu soo dhaweeyey waxaa la socday hal joog oo ninkudi joogga kanimaka biyaha lagu shubto oo kale sharaabka lagu shubo kale laakiin sharaab kuma jirin jooggaasi oo ka buuxaan buu yidhi moogtahay cadar dimishq laga keenay suuriya waqtigaasi laga keenay cadarkaasi qacmahay noogu shushubeen qacmahay ku shubeen iyo qacmihii qaadiga markaasuu inankii ka yidhi our master ninkiina xukumay masterkayadii hogaamiyahayadii wuxuu ini yidhi ninkan mar hadduu yahay xeer yaqaan hadduu yahay oo khabiir xeer yahay doctor of law hadduu yahay ninkan waxaa la dejinaya hal la dejiye buu sheekhu yidhi in the student house guriga amba qasriga ardayda taasina waxaa halkaa ka caddaatay inay ardayda muqdisho dadka wax baranaya diin iyo maadi baranaya inay reerahooda lamay deganeyn laakiin jaamacadday deganeen guri loogu talagalay dhul loogu talagalay la dhisay ay maamulka muqdisho dhiseen oo ardaydu degan yihiin qof alliyo qofkii iyaga la xirfada amba dad cilmi yaqaan hadday muqdisho soo galaan halkaasaa la dejinayaan sida ardayda ay wax ka faa'iidaystaan marka taasina waxay ku tusaysaa muqdisho inay jirto wax la yidhaha student house waxa weeyaan waa jaamacad oo meesha ardaydu ay degan yihiin equipped for the entertainment of student of religion buildingkaasi amba complexkaasi dhulka dhisan wax lagu barto guriga jaamacadda waa qarnigii 13aad jaamacadaha marka la yidhahdo adduunka ugu waaweyn sida adduunka qoran jaamacadda adduunka ugu da'da weyn waxa dhaha Fez waxa ku taala Morocco ayaa la yiraahdaa 200 sano ka horeysay ujeedada taa soo qabsanay waxa weyn Ibn Battuta markuu tagay waxaa jirtay student house iyo jaamacad ardaydu wax ku bartaan waa waqtigu isagu xaadir ku ahaa muu sheegin muuna weydiin goorta la bilaabay amba la sameeyey jaamacadda muqdisho waxaa dhici karta inay ka horeysay taasina waxay suurtagalba tahayba jaamacadihii adduunka ugu horreeyey inay muqdisho macal ku tahay jaamacaddii ugu horeysay student oo iyada waa la qalabeeyey this being a building waa cimaarad la qalabeeyey entertainment bes inay ku baashaalaan ardaydu ku baashaalaan maxay ka dhigan tahay buugaag nooca doona u yaala waxay doonaan hadday baranayaan maxsaska wax lagu qorqor haddaa loo baahdo waxay ku nastaan waxoo dhan ba u taale waa saasuu Ibn Battuta qoraya wuxuuna ku barbar dhigayaa dhulka kale adduunka soo maray de qaadiga took me by the hand and went to this house qaadiga baa gacantay qabtay gurigaasuu geeyey jaamacaddaasuu geeyey which is in the vicinity of the Sheikh residence kamana dheero qasriga madaxtooyada qasrigan ay degan yihiin ardaydu ee jaamacadda and furnished with carpets and all necessary appointments qasrigaasi wuxuu sheego kale gurigaasi ay ardaydu dhan degan yihiin guri lagu tilmaamo meel weyn guryo badan dad doonta noqon karta wuxuu yiri gurigaasi waxaa lagu sharaxay amba dhulka oo dhan la dhigay carpet waxa imika loo yaqaan rooga carpetka haddadan ba imika dhulkaba muqdisho amba jaamacadaha adduunka way yar yihiin wax dhulka oo dhan wada carpet yaallo laakiin saas isagoo carpet
ayuu ahaa on all necessary appointments haddana ku celiyey wax kastoo jaamacad amba looga baahdo arday uu baranayo wuxuu barbardhigay adduunyadu soo maray wax kastoo loo baahdo waa loo dhigay ardaydaasi waa muqdisho qarnigii 13 700 sano horteed ma aha muqdisho imika qarnigii 21 ma waa muqdisho qarnigii 13 sidaa ula socda wax badan baan ka baran doonaa habdhaqanka okay later our saving boys brought foods from the sheikh residence. With him came one of his vizier who was responsible for the care of the guests and who said, our master greets you and says to you that you are heartily welcome. And markii waxa lagu soo dhaweeyay ninkaas ibn Battuta macmaayir guriga waxa la geeyay ardada jaamacadda iyo la dajiyay jaamacadda markii la dajiyay waxa hadana ka daba yimid inaan dhalinyarada ka daba yimid soo qorayo waxa loo keenay hadda cuntadii culusayd ee kulleed baa loo keenay waxaana la socday wasiir saasoo qoray wasiirka sheekha wasiiradiisa wasiir baa la socday oo isagu loo xil saaray dadka martida taasina waxa weyn waa wasiirkii arrimaha dibadda halkaasina waxaan ka turjumaynaa dowladda ama maamulka jiray wuxuu la wasiirka midna wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda oo isagu xil saaranba wixii wadanka dibadda iyo Soomaali ahayn ee dibadda ka yimaada yaa loo xil saaray inay dadkaasi ka farxiyaan dejiyaan cilaaqaadna la sameeyaan sidaas meesha ku qoran abni Battuta saas u qoray who was responsible wuxuu shaqadiisa buu ahayd baba for the care inuu ka shaqeeyo oo habeeyo martida wasiirkii markaa ka yiri haddana waa markii labaad markii hore qaadigii baa ka yiri moogtay kelmado wanaagsan haddana wasiirkii baa fariin uga siday haddana sheekhi wali sheekhi lama kulmin bal eeg haybadda wadaadku uu lahaa sheekhaas uu wadaadna ma oran wadaadadii ma jiraan laakiin waxa sheekh suldaan hogaamiyo uu lahaa wuxuu yiri haddana wasiirkii baa kelmadaha ka oran doona fariin baa kaaga sidaa sheekhay wuxuu ku yiri our master hogaamiyahayadii ninkii xukumay greets you wuu ku salaamay and says to you that you are heartily welcome wuxuuna ku yiri si qalbi furan ku soo dhawow he then sat down oo fadhiistay ninkii wasiirkii baa fadhiistay and the food and we ate cuntadiina waa la keenay waana cunnay marka qaadigii wasiirka arrimaha dibadda ibn Battuta iyo ardadii iyo dadkii joogjoogay waan cunnay cuntadii baa loo keenay moogtay halkaasi waa soo dhawaysti hay their food marka cuntadu ka hadlay cuntada muqdisho taano fiirsada kelmadahaasi cuntooyinka barbar dhiga wuxuu isagu ibn Battuta markuu qorayo wuxuu barbar dhiga adduunyada wuxuu ka soo arkay iyo muqdisho wuxuu ka qorayo iyo markuu qorayo wuxuu kelmadu isticmaalayo waa kelmado u garab dhigayo wuxuu kala adduunka soo arkay wuxuu yiri their food waxa weyn is rice cooked with ghee which they put into a large wooden plate and on top of these they set plates of kushan. This is the seasoning made of chicken, flesh meat, fish and vegetables. They cook unripe bananas in fresh milk and put this in one dish. And in another dish they put curdled milk on which they place pieces of pickled lemon, bunches of pickled peppers steeped in vinegar, and salted green ginger and mangoes. wuxuu yiri cuntadoodu waa bariis lagu kariyay subag lagu dul keenay saxni weyn oo ka samaysan qori saxni weyn oo qori waxaana bariiska dul saaray qoshaan waxa weyn waa seasoning waxa weyn waa maraqi baa dul saaray maraquna muxuu ka samaysan yahay wuu moogtay waa maraq chickens laga sameeyay dooro amba digaag wax la dhahdo digaag la kariyay hilib geel iyo hilib ari malay vegetable xawaash waxaas oo dhan isku kariyay oo
la dul saaray bariiskaasi sixnigaa weyn la dul saaray yaan hordhigi buu mogtay waxayna sameeyaan buu kaloo yidhi ma muus qaydhiin aana bislaanin iyay ku kariyaan caano kaana waxay noo keeneen weel taasina weel baa loo keenay hay waa caano lagu kariyey bariis muus qaydhiin oo caano lagu kariyey in another dish sixni kalena waxaa lagu keenay caano garoora hadda waxaan soconaa laba sixni sixni waxa weeyaan waa sixni waxaa lagu keenay dish waxaa lagu keenay caano garoora mid kale waxaa lagu keenay muus qaydhiin oo la kariyey oo caano lagu kariyey isaguna waxaa laga dhigay sixni waayin oo bariis iyo hilibkiisii iyo alaabtiisii dul saaranteen halkan buu taallaa waa saddex markasa sixni kale haddana isaguna jira uu yidhi moogtahay another waa saddexdaas sixno kaa caanaha garoorka la sameeyey waxaa dul saarsaaray liin dhanaan iyo pepper iyo vinegars khal salted green ginger waxa la yidhahdo maangana waa la garab dhigay maangana waa lasoo garab dhigay maangada markaa wuxuu yidhi waxay u eg tahay waa sida tufaaxa buu yidhi oo laf ku dhex jirto markuu bislaado maangada buu yidhi moogta wuxuu ka faalona maangada markay bislaato aad bay u macaantay laakiin haddayna bislaan aad bay u dhanaan tahay sida loo cuno wuxuu yidhi moogta when they take a mouthful of the rice mar alliya markay qaataan bariiska afka ay geliyaan ay cunaan xabad marka saa cunaan waxay haddana ay afka geliyaan dhandhanaankii yaraa caanihii yaraa garoorkii yaraa baa la yara cabaya iyo amba waxaa la samaynayaa muuskii yaraa caanaha lagu sameeyeyba la yar qaadanaya waxaas haddana la yar qaadanaya waa habka saasaa loo cunaya bariiska baa laga qaadanaya waa la cunaya haddana waxa dhandhanaanka yar macmacaanka yar baa lagu daray hadda saas loo cunaya isweydaarsi saasaa lagu dhammaynaya okay ibn Battuta marka haddana uu sii wadaa wuxuu yidhi ma a single person of the people of Mogadishu eats as much as a whole company of us would eat as a matter of habit, and they are corpulent and fat in the extreme. markaas uu qoraya mogtay ibn Battuta wuxuu ma qofka qurata halka qof ee reer Muqdisho wuxuu cunaa in ayaantiba wuxuu cunaa in u dhigmata inta anagu aan cunayno markabka inta saaran dadka saaran shariif sheekh kabtan ragga ka shaqeeya ragga baac mushtarka sameynaya saarne shicnadaha iyagu wada ragga muqdisho doonaya wax kiibsan markabkoo dhan inta saaran ayaantii waxay cunaan iyo halkii muqdisho uu cunaa taasina xaqiiqda qarnigii 13aad marka lagu leeyahay laga akhriyo reer muqdisho amba soomaalida reer muqdisho ma oranade soomaali marka la yiraahdo barbaraawi dadka la yiraahdo min zayl ila muqdisho degan soomaalidu iyaa masruufi jirtay amba ka bixin jirtay zakada arbaha geen jirtay maaha wax la iska alifun been laga keenay waa kan barwaaqada ka jirtay muqdisho halka qof barwaaqo uu ku jiro cuntadiisu waxay ka badnayd markab idil dibadda ka yimaada waxay cunaan ayaantaasi xaqiiq saasuu ibn Battuta qarniga 13 ka qoray waay hansiis on after we had eaten the qadi took leave of us we stayed there 3 days food being brought to us in three times a day following their customs on the 4th day waan kala doonaa ayaanta afraad wuxuu yidhi markii sidaan u cunnay qaadigii wuu naga tegey annaku waxaan joognay waa ibn Battuta iyo kalkaaliyeyaashu waxaan joognay 3 cisho cuntana waa noo keenay wuu cuntana loo keeni jiray 3 jeer ayaantiiba siday dhaqankoodu tahay following the custom dhaqanka Soomaalida waa 3 jeer yaa la cunaa 3 jeer marka waxa dhici karta dhaqamada kale uu ka yimid dhulka kale uu ka yimid arbaha masaarida amba dhulka kale ka yimid inaba la cuno 3 jeer arbaha mar qurato malaha la cuno laakiin Soomaalida dahab dhaqankoodu waa kaasi 3 jeer baa cuntada loo keeni jiray marka ayaanta afraad on the 4th day which was a Friday the qadi
and one of the sheikh's wazir came to me, bringing a set of robes. These robes of theirs consist of silk wrapper, which one ties around his waist in places of drawers, for they have no acquaintance with these. A tunic of Egyptian linen with an embroidered border, a third mantle of Jerusalem stuff, and an Egyptian turban with an embroidered edge. wuxuu yiri ayaantii afraad waa ayaan jimcaha. ayaanta jimcaha qaadigii ayaa ii yimid iyo ardadiisii iyo one of the sheikh's wazir. haddana waxaa yimid wasiir ka mida wasiirada sheekha, waa dowladda ka jirta muqdisho waqtigaasi wasiir ka mida ayaa yimid. wuxuuna ii keenay dhar buu ii keenay. dharkiibu haddana xakan uu Ibn Battuta sheegi doona dharka wuxuu yahay. dharkii la ii keenay waxa weeyaan macmuus amba midaan dhexda ka xidho oo laga sameeyey xariir silk baa laga sameeyey wrapper dhexdaan ka xidho. A tunic of Egyptian linen waxaa la ii keenay ku kala dushaan ka dul xidho, garbaha ka dul xidho, jirkaan ka dul xidho, macmuusta ka dul xidho oo Masar laga keenay, Masar oo la qurxiyey sharaxaadna leh. waxaana dusha sare haddana jaakad weyn amba maro weyn oo dusha sare waxaan dhan ka wada dul xidho haddana oo isagana laga keenay Baytulmaqdis, Jerusalem, Falastiin laga keenay. madaxana waxaa laygu duubay cimaamad isaguna Masar laga keenay. saasa loogu duubay. marka sidaa markii loo qurxiyey ay nadaafad isnadiifiyeen jimcihii saasaa ninkii martida Ibn Battuta loo sameeyey maamulka ka jira Muqdisho. They also waxayna kale sameeyeen buu ma waxay keeneen oo kale robes for my companion suitable for their position. kalkaaliyaashana dhar baa loo keenay iyagana ku habboon. We went to the congregational mosque and made our prayers behind the mas'ura. markaasaan tagnay buu yiri mugtay salaadii jimcaha ka qayb galnay waxaana ku tukaday mas'ura waxa dhaa meeshan iyagu say ku macneeyeen minbarka meesha laga qudbadeeyo agtiisaasi meelo kooban baa jirtay ka yar ka nidaamsan oo loogu talagalay mas'uuliyiinta iyo sheekh iyo dadka mas'uuliyiinta inay ku dhawaadaan imaamka iyo qudbada. halkaasaan fadhiistay buu. When the sheikh came out of the door, sheekhi markuu ka soo baxay miskidada hore waxaa jirtay meesha minbarka u dhow ee qudbada laga akhriyo albaab baa ka jira. albaabka waxaa ka soo gala imaamka iyo dadka muhiimka ka soo gala. albaabada waaweyn ee cirifada kaga jira amba halka dambe halka hore gadaal albaabada miskidka waaweyn dadka ka soo gala wasiirada maamulka kale shicibka ummadda ka soo gasha. laakiin imaamka amba ninka qudbadaynaya qudbada jeedinaya amba emiirka dhulka haysta albaabka ku dhegsan wuxuu ka soo galaa minbarka meesha laga qudbadaynayo. waana albaab yar oona badanka jimcihii baa la furaya oo la furayna waqtiyada kale lama furo. halkaasuu ka soo galay bushaa. I saluted him. waa markii ugu horreysay la kulmay sheekh Ibn Battuta. waan salaamay buu ma along with the qaadiguna sheekhi uu salaamay. He said a word of greeting, spoke in their tongue with the qadi and then said in Arabic. marka sheekhi wuuna salaamay qaadigii buu la hadlay afkuugu kula hadlay afkii marka waa af Soomaali wili afkuugu af Carabi ma waa wili Ibn Battuta af Carabi fahmay af Soomaali buu kula hadlay qaadigii. markaasuu af Carabi ugu sheegay buu sheekhi baa af Carabi markii ugu horreysay sheekha wuxuu ka yiri you are hardly welcome. si qalbi furan baad ku soo dhawow. you have honored our land and given us pleasure. waana dhulkayadii waa dhulkii Soomaalida waana sharaftay dhulkayadii waa sharaftay waana naga farxisay. saasa Ibn Battuta sheekha ka yiri. sidaa markuu ka yiri he went out to the court. jimcihii waa la tukaday
wuxuu tagay wuxuu Ibn Battuta qoray, he went out to the court of the mosque and stood by the grave of his father who is buried there, then recited some verses from the Quran and said a prayer. wuu kacay wuxuu tagay qabriga barxadiisa hore miskiidka barxadiisa hore oo qabri ku yaala qabrigii aabihii Sheekh Umar marka isaga Abubakar Sheekh Umar Badaam odayga Umar ku aasan yahay uu soo duceeyay aabihii quraanna uu soo akhriyay Sheekh isaas uu sameeyay. After this the vizier, Amir and officer of the troops came up and saluted him. Markuu sidaa uu sameeyay wasiiradii amiiradii iyo sarkaaladii askarta ugu sarreysay way u yimaadeen wayna salaameen. Their manner of salutation is that the same as the custom of the people of Yemen. One put his finger to the ground, then raises to his head and says, "May God prolong thy majesty." way salaameen marka wuxuu yiri habdhaqanka isku salaamaan waa sidaan ka soo arko kale Yemeniyiinta isku salaamaan far bay dhul ka dhigaan way sare qaadaan madaxay taabsiyaan markaas ay yiraahdaan ilaahay ha dheereeyo maamulkaaga sheekh Sakran. The sheikh then went out to the off the gate of the mosque, put on his sandals, ordered the qadi to put on his sandals and me to do likewise, and set out on foot for his residence, which is close to the mosque. wuxuu yiri marka sidaa la sidii sheekhi wuu baxay kabiisu gashaday qaadigu ku yiri kabaha gasho anigana kabaha gashaa laga yiri sidaasaan ku dhaqaaqnay lo ku tagnay ku tagina miskiidka ilaa iyo qasriga sheekh waa qasriga Dimashq wadanka laga xukumo Muqdisho laga xukumo qasriga sheekh qasriga madaxtooyada marka oo u dhow miskiidka. All the rest of the people walked barefoot. Dadkii kale miskiidka ilaa inta sheekha ka tagayaan xafiis gurigiisa qasrigiisa inta kale way kabalaayihiin saas soo qoray ummadda kale kaba waysan laakiin miskiidka ka yimaadeen inta kale kabaha ma gashanayaan. Over his head were carried 2 canopies of silk, of colored silk, with the figure of a bird in gold, and top of each canopy. His garment on that day were a large green mantle of Jerusalem stuff. wuxuu yiri marka uu socdo dalaayad iyo dusha sare madax laga qabtaa afarta gees baa la hayaa marooyinka ka samaysan buu yiri waxa weeyaan Ibn Battuta wuxuu yiri marooyin dahabiya shimbiro ay ku sawiran yihiin kaasi iyo laga sameeyay dusha sare dalaayada weyn afar dhinac la hayo madaxiisa la dul wado sheekha. ayaantaasi buu sitay wuxuu dharku xidhnaa buu ka faalloonayaa. His garment on that day were a large green mantle of Jerusalem stuff with fine robes of Egyptian stuff with their appendages underneath it, and he was girt with a waist wrapper of silk and turbaned with a large turban. wuxuu yiri ayaantaasi wuxuu xidhnaa sheekhu dhar greena akhtara cagaara iyo xidhnaa oo laga sameeyay waxa weeyaan jacket weyn amba maro weyn oo jacket weyn oo sidamka amba khamiis loo yaqaan weyn oo laga keenay Baytul Maqdis iyo xidhnaa dhexdana suunkii ugu xidhnaa wuxuu ahaa suun silk laga sameeyay xariir iyo dhexdana suunkaas soo ugu xidhay yaa ugu xidhnaa madaxana imaamadiisu waxay ahayd imaamad Masar laga keeno aad u weynid oo iyadana qurux badneed sidaas oo qoray. In front of him were sounded drums and trumpet and fifes.
Before and behind him were the commanders of the troops. hortiisa waxaa socday intaa ay miskiid kasii baxayn ilaa qasri gaadhgan durmaano iyo saxofono bahlan waaweyn la afuufo waxaasi fluteska bahlan yare iyaguna la afuufe waxaasoo dhan oo la tumayo ayaa hortiisa hor socda waa la tumaya durmaan dugdugdug oo heysooyin lasii qaadaya halka hore iyo halka dambana waxaa ka socda buu yidhi sarkaalada ciidamada xukuma iyo halka hore halka dambe ka socda. While the Qadi, the doctor of the law and the Sharifs walked alongside him. hareerisana waxaa ka socda qaadigii xaakimiintii kuwa cilmiga shuruucda bartay shariifyadii isaguna hareerihiisa socdaan. He entered his audience hall in this disposition, and the wazir, amir, and officers of the troops sat down in a gallery there. saasuu ku galay qasrigiisii saas socodkaas saa loo wado iyo gurigiisu galay. markuu sidaa gurigiisii ku galay sheekhii, he entered his audience hall in this disposition, and the wazir, amir, and officer of the troops sat down in a gallery there. markaasay wasiiradii iyo emiiradii iyo sarkaaladii ciidanka ugu sarreeyey iyaguna waxay fadhiisteen qayb ka mid ah gallery. For the Qadi, there was spread a rug. Qadiga waxaa loo diyaariyey rug oo loo ballaariyey on which no one may sit but he. Qadiga rugganba qofka lama fadhiisan kara, qaadigu ma fadhiisan kara. Qadigu waxa weyn waa xeerlaaliyaha guud waddanka. And beside him agtiisana waxaa fadhiista jurist xaakimyaasha fadhiista and the sheriffs iyo shariifyada. The remainder until the hour of the afternoon prayer. And after they had prayed, the whole body of troops came and stood in rows in order of the ranks. hal sidaasay u fadhiisanayaan maamulkii dhulku. qaadigu saas u fadhiisanayaa, agtiisana waxaa fadhiisanayaa xaakimyaasha iyo shariifyada. sidaasay u fadhiyeen ilaa iyo laga gaadhayo salaada casarka. saasuu qoray. markii salaada casarka ay tukadaanana the whole body giddi ciidanka oo dhan wuu kacayaa, wuxuuna isa soo sharaxayaa qayb rows of orders siday u kala sarsareeyaan u kala xirfadaysan yihiin ciidamadu iyo sidaa saraf isku taagtaagi doonaan. marka casarka saa loo tukay saasa ciidanko dhan saa isku soo taagi doonaan. markaasaa durmaankii la bilaabi doonaa iyo heesihii iyo wixii la afuufayey la bilaabi doonaa. inta uu durmaanka iyo musigaasi uu socdo, wuxuu yidhi while they play no person moves or stir from his place, and anyone who is walking stands still, moving neither backward nor forward. When the playing of the drums band comes to an end, they salute with their fingers as we have described and withdraw. This is a custom of theirs on every Friday. durmaanka sidaa loo tumayo iyo alaabaha la afuufayo qofna ma dhaqaaqi karo.
hadduu qof socdo meelahaasina isla markaas durmaanku bilaamo uu istaagaya horena ma socon karo gadaalna ma socon karo saasuu taagaya durmaankaasuu daawanaya iyo waa imka soomaalida waxa adduunya laga yaqaanaba de bandskan la tumada marka lasoo dhaweynayo madaxweyne iyo xasi waa wax qarnigii 13aad intiiba dowladuhu ayna jirinbaba gaaladan aynaba ilbixinbaba muqdisho laga isticmaalay taasina calaamad cad ay tahay qofna ma dhaqaaqayo marka durmaanka la tumayo alaabaha la tumayo marka sidaa u dhammaadaanana waxaa la yidhi sidii bay salaantii bay bilaabeen ay farta gacanta dhulka dhigayeen madaxay ku qabanayeen ay oranayeen ilaahay ha dheereeyo xukunkaada isla markaasay saa u wada baxayaan markaasi ibnu Battuta wuxuu yidhi this is a custom of theirs on every Friday taasina waxa weyn saa loo dhaqmayo waa dhaqan iyaga u gaara Soomaalida jimciyaashii ma oran hadda waa dhaqan muslimiinta amba dhaqan Yaman ka soo aragnay amba dhaqan aan Xijaaz ka soo aragnay amba dhaqan Masar ka soo aragnay ma oran wuxuu qoray waa hab dhaqan iyaga u gaara waa imika sidan la tumo maamulada loo tumo adduunyaha ka jirta qarnigii 13aad waa hab dhaqan Soomaalidu ay lahayd maamulku halkaa ka sii wadana haye jimcihii saas ku dhammaaday qaybtan kale waa qaybtii iyaduna muhiimadda igu dhalisay inaaba af Soomaali ku akhriyo sabtidii waa jimcihii waa ayaan jimceed waa ayaam la ducaysto waa ayaam la farxo waa ayaam la nasto waa ayaam music la tumto casarkii waa ayaan la nagaado sabtidii waa ayaan shaqo sidee loo shaqeeyaa Muqdisho ujeedada akhristu waxa weeyaan bal yar eegasa loo shaqeeyo maamulku sidoo shaqeeyo dawladdu sidoo shaqeysa hab dhaqanka dawladeed ee ka jirtay ilaahay jannadii hageeyay sheekh Abubakar Sheekh Umar iyo maamulka waqtiga ka jiray siday u dhaqmayeen bal dhageysta qoraalka sidoo ibnu Battuta qarnigii 13aad u qoray oo xaqiiqo lama taabtaana Saturday ayaanta shaqada ayaan shaqo the population shicibka the population come to the Sheikh's gate and they sit in the porticos outside his residence ayaanta sabtida shicibkii oo dhan ee Muqdisho shicibka oo dhan adu intii doonaysa shicibka Muqdisho intii doonaysa waxay imanayaan baraxada amba inta hore dirashada hore qasriga madaxtooyada halkaas ay fadhiisanayaan waa gaarnaka halkaas la fadhiisanaya the qadi jurist and sharif men of religion sheikh and those who have made the pilgrimage go into the second audience hall wuxuu kala soo tilmaamay barxadda hore shicibkii fadhiista dadkii shaqada amba baahi qabay amba doonaya inay shaqo loo qabto barxaddaas fadhiisanayaan qaybta labaad waxa fadhiisanayay mogtay qaadiga waa xeer ilaaliyaha guud jurist xaakimyaasha sharifyada men of religion dadka diinta yaqaana wadaadada sheekhyadu waa dadka wadaadada iyaguna ka sii sareeyay wadaadka macallimiinta sheekhyada and those who have made the pilgrimage iyo dadka xashka tagay xaajiinta muxaashta dadka xashka tagay iyaguna waxa noqon xujaajta dadkaasi intaas isku jirana waxay fadhiisanayaan qaybta labaad ee audience hallka amba hallka lagu talagalay dhageysiga qaybta labaad bay iyaguna fadhiisanayaan where they sit on platforms prepared for that purpose. The qadi will be on a platform by himself, and each classes of person on the platform proper to them, which is shared by no others. And qaybta labaad waxaa loo kala fadhiisanaya buu qaadigu xeeryaha guud meel isaga u gaara dadka kale sida loo sheegay qaadiyaasha jurist dadka xeer yaqaanada xaakimyaasha iyaguna waxay fadhiisanayaan meel iyaguna loo diyaariyay oo iyagu xirfadooda u gaara shariifyadu iyaguna meel u gaar ah fadhiisanayaan men of religion
dadka ahludiinkuna meel u gaara nin kastaba meel u gaara fadhiisanaya oo qaybtiisu la fadhiisanaya dadkiisu la fadhiisanaya maaha kelima fadhiisanaya qaadiga oo quraata xeeraryaha guud oo quraata ma fadhiisanaya keligii inta kaloo dhan group iyo koox bay u fadhiisanayaan shicibkiina xaq hore fadhiyaan marxadda hay the sheikh then take his seats in his hall and sends for the qadi okay sidaa marka loo fadhiyo xaalka ugu dambaysana waa hallkii waa qaybtii sheekha marka soo baxaya isaguna wuxuu fadhiisanayaa meeshiisa qaybtiisu fadhiisanaya waa qaybta koobaad waxa weeyaan waa baraxaddii hore shicibkii weynihii baa fadhiisanaya qaybta labaad waa hall waa qol weyn oo fadhiisanaya dadkii wasiiradii qaadiyadii sheekhyadii qayb wada fadhiisanaya in kastaba qaybtiisu fadhiisanaya qaadiga keligii xeerlaha guud isagoo keliga fadhiisanaya haye waa qaybtii labaad kuwaasi qaybta koobaad waa shicibkii qaybta labaad waxa weeyaan waa dadkii maamul ka shaqaynaya saan kusoo macneeyey qaybta saddexaad ee ugu dambaysana waa sheekha keligii okay wuxuu yidhi the sheikh then take his seats in his hall and send for the qadi who sit down on his left markuu sheekhu saa u yimaado isagoo qaybtii saddexaad halkaa uu fadhiisto keligii uu fadhiisto qaadiga oo keligii fadhiyo qaybtaasi labaad maamulkii la fadhiyay iyuu u yeedhayaa waa xeeraryaha guud buu u yeedhayaa bidixdiisu fadhiisanaya sheekha bidixdiisa hay daawada halkan maamulka haddaba maamulka waa muhiim inaan fahno maamulka sida wax loo maamulayo ayaanta shaqada ayaanta la shaqaynaya sida loo shaqaynayo shicibkii halka hore fadhiyaan waxaan nidhi qayb nin kastaba xirfadiisa ayaa meel loo diyaariyo waa qaybta labaad ay fadhiisanayaan xaakimyaasha wasiirada isbay u fadhiisanayaan xaakimyaasha isbay u fadhiisanayaan sheekhyada isbay u fadhiisanayaan emiirada isbay u fadhiisanayaan dadka xujaajta isbay u fadhiisanayaan iyagoo qaybta labaad bay ku wada jiraan intaasoo dhan qaadiga keligiina meel buu fadhiisanaya isagu koox lama soco isagoo xeeraryaha guud uu ka madax bannaan yahay qaadi marka isagoo masaari ujeedada loo sameeyey qaadiga isaga loo keenay anu sidaan ka akhristay waxa weeyaan waa consultant waxa weeyaan waa nin lasoo ergistay lasoo kireystay amba la doontay siduu u xaakimo uu garta u kala qaado shicibka iyo maamulka muqdisho ilaan qofna uma xaglinayay qolana kama tirsanee reerna kama tirsanee wuu ka madax bannaan yahay xeeraryaha guud wakaas wuu ka madax badan yahay macal sheekha dadkiisii inankiisii kama dhigin amba dadkiisii kama dhigin xeeraryaha guud waa nin ka madax bannaan dibadda macal laga keensaday qaadiga wakaasi saasuu sheekhu ka dhigay dibaddu ka keensaday waa nin u xirfad leh waxan keligiiba markaa isagoo kooxna kuma jiro laakiin kooxaha kale qayb bay u fadhiisanayaan markuu sheekhu marka uu soo yimaado uu meeshiisa fadhiisto ayuu u yeedhayaa qaadiga uu kasoo dhex kicinayaa kooxda hoolkaa weyn ee koox loo fadhiya qaadiguna keligii fadhiyo ayuu kasoo kicinayaa wuu u yeedhayaa markaasuu sheekha agtiisa fadhiisanaya bidixdiisu fadhiisanaya saasaa ku qoran ibnu batuuta saasuu qoraya thereafter marka haddana waxaa ku xigaya the jurist enter and the principal men amongst them sit down in front of the sheikh while the remainder salute and withdraw kooxdii loo fadhiyo waxa ugu soo horkacaya markaasi qaadiga waa ugu horreeyey waxa ugu soo horkacaya kooxyada marka la sheegayo kooxda waxa ugu soo horkacaysa ilaa shicibka wax loo qabanayaaye balaak wuxuu ibnu batuuta qoray shicibka wax loo qabanaya somaa so shicibkii dacwadahoogii iyo gartoodii iyo xuquuqdoodii iyo ciqaabtoodii iyo lama kala marinayo waxa ugu soo horkacaya qaybta waxa ugu soo horkacaysa jurist xeeryaqaaninta xeeryahanka amba xaakimyaasha kuwaas ugu soo horkacaya buu yidhi waxa iska soo dooranaya qayb iyaga kamida qaybta iyaga kamida ayaa sheekha hor fadhiisanaya
inta kale way salaamayaan sidii hore salaanta u sheegnay iyo salaamayaan ilaahay ha dheereeyo xukunkaada oranayaan way baxayaan maxaa markaa ku soo hadhay meeshii hoolka sheekhii suldaankii adduunaha dee madaxweyne amba loo yaqaano ama boqorka loo yaqaano laakiin anagu Soomaali ahaan sheekheennii uu fadhiyaa bidix waxaa ka fadhiya nin madax bannaan qaadigii waa xeerliyaha guud dadkii markaa kooxihii xirfadda u lahaa ee ahaa xeer yaqaaniinta ahaa ee xaakimiinta la oran ee dhulka kale xukumayay shicibka kale xukumayay iyo qaybtoodiiba soo wada kacaysa sheekhay hor imanaysaa qayb iyagu ay iska doorteen dhowr nin ay iska doorteen amba gabadha ku jirto iska doorteen iyo iska doorteen yaa fadhiisanaya sheekha hortiisa inta kale way salaamayaan way baxayaan waxay ku noqonayaan shicibkanba kula noqonayaan amba meeshay fadhiyeen qaybta kale fadhiisanayaan shaqa ilaa halkan waad arki doontaa shaqa bilaami doonte waayahay next waxaa ku xigay wiil maaha the sheriffs come in the principal men sit down in front of him and the remainder salute and withdraw waxaa imanayaa shariifyada imanaysa qaybihii kooxdii shariifyada imanaysa qayb iyagu iska doorteen iyo sheekha hor fadhiisanaysa intii kale hadhena way salaamaysaa sheekha wayna dib bay u noqonaysaa meesha ka baxaysaa marka haddana waxaa ku xigirma if they are guest hadday marti jirto sida ibnu Batuta kale oo isagu ninka uu sheegay ibnu Batuta laftiisu hadday marti jirto they sit on the sheikh's right hadday marti jirto waxay fadhiisanayaan sheekha midigtiisa bal martida karaamada balaga dadka shaqaynaya iyo ummadda oo dhan ninka xukuma madaxweynuhu dadka marti u ah waa dadka uu sharfaba midigtiisu fadhiisiyey qaadiga bixiisu fadhiisiyey xeer ilaaliyaha guud ee waddanka bixiisu fadhiyey dadka hadday marti jiraan buu yiri hadday marti jiraan waddanka joogaan iyagu waxay fadhiisanayaan sheekha midigtiisa hadda imika dowladda markaan martida waa inoo haddii madaxweyne kale yimaado hadduu yimaado boqor hadduu yimaado dad hay-ado waaweyn haysta markaa siduu madaxweynaha ula dhaqmayo inuu la dhaqmo ahayd 700 sano horteed waa laga horreeyey saa imika loo dhaqmo waa laga horreeyey sheekheena iyo Soomaalidiin hore way ka habdhaqan horreysay way soo socotaa weliba habka loo shaqeeyo inay ka horreysay waayahay dadka martida bidixda fadhiisanaya markay shariifyadu yimaadaan isoo shariif waxa imika fadhiistay qayb ka mida dadkii xaakimyaashii qayb ka mida shariifyadii intii kale way baxeen way salaameen way noqdeen next the sheekhyada waxaa ku xigay buu yidhi ma sidan ba haddana loo kala fadilay dadka xajaajta tagin pilgrims come to him xujaajtii ayaa imanaya qayb iyo ka mida ayaa sheekh hor fadhiisanaya inta kale baxayaan the rest saluted then comes marka bay ku xigayaan xujaajta balad waxaa ka dambeeya oo xujaajta waxaa laga sii xujaajta ka fadal badanba waxaa ka dambeeya wasiirada hadda imika wasiirada Soomaaliya dadku say u dhaqmaan wasiirku ummaddu u shaqeeya waa shaqaale caadiya inuu dadka dhex fariisto dadka dhex shaqeeya ahayd xujaajtaba ka sharaf weyn maamul barka la yidhaahdo iyo dadka xeer yaqaanada iyaba ka sharaf weyn wasiirada yaa imanaya buu moogtay wasiirada qaybiye ka mid iyaguna fadhiisanaya inta kale way salaamaysaa sheekha way baxaysaa emiirada haddana ku xiga way imanayaan qaybiye ka mid way fadhiisanayaan inta kale baxaysaa hay then the officers of the troop markaasi bay imanayaan askarta ragga ofisiyada askarta inta ugu muhiimsan ayaa fadhiisanaysa inta kale baxaysa marka waa sarkaalada inta ugu sarreysay sarkaale ma askartii ma aha dowladda ma waa qaybtii ahaa qaybtii ugu sarreysay iyo koox u fadhiyey sarkaaladii yaa imanaya iyaguna qayb iyaga ka mid a sarkaalada in ka mid oo soocan
iyo sheekh hor iyagu iska dhex doorteen iyo sheekh hor fadhiisanay inta kale islaamsa ay baxaysaa marka maxaa ku xigaya ibn Battuta marka haddana wuxuu qoray groups after groups hadda wixii ka dambeeya waa xirfad dadkii kalluumaysiga ahaa dadkii beero qodotada ahaa iyaguna qaybtoodii iyo iyaguna intay soo galaan qayb iyo kamid ah sheekh hor fadhiisan inta kale baxaysa marka hadda waxaa sheekha loo hor fadhiyaa xirfad iyo loo hor fadhiyaa xeerlaha guud qaadiguna bidxiisu fadhiya martidina midigtiisa fadhiya sheekha waayahay waa ayaan sabtiya waa ayaan shaqada sa loo qabsanayo waayahay food is brought in the qadi and the sharifs and all those who are sitting in the hall eat in the presence of the sheikh and he eats with them markaasaa cunto la keenaya cuntadii yaa sheekhii uu la cunaya dadkii waxa weeyaan waa intaa dee dadkii lasoo soocay sidii aan soo macnay loo soocay yuu sheekhu la cunayaa cuntadii baa la wada cunaya cuntadana nii sheegay dee cuntadee ibn Battuta adduunyaha kaleba ku arago dee aad u heer sarreysa cuntadii baa la cunayaa hadduu sheekhu wuxuu yidhi if he wishes to honor one of his principal amir he sends for him and the later eats with them hadduu doonaya dadkaasi ka hadhay oo dadkii baxay ku jiro mid isagu sheekhu nafahantiisa uu doonayo inuu sharfo uu uga dhex yeera dadkaasi isaguna uu markaas la fadhiisanaya uu la cunaya the rest of the people eat in the dining hall and the order of the eating is the same as the order of the entry into the sheikh's presence dadka intiisa kalena waxay ku cunayaan hallkii iyo ku cunayaan waxaana loo kala hor cunayaa sidii loo soo kala horgalay nii macniyey markii hore sidii loo soo kala horgalay hadda inigu celi sidii loo soo kala horgalay haddaan xasuusanayo waxa ugu horreeyey xaakimyada waxaa ku xigay xaakimyada ugu horreeyey in iyaga kamida qaybta xaakimada soo galaysa in bay iska reebeen inta kale way salaamayaan way baxayaan waxaa ku xigay shariifyada in bay iska soocayaan way fadhiisanayaan inta kale way baxayaan waxaa ku xigay martida oo sheekha midkiisa fadhiisanaysa waxaa ku xigay haddana sheekhyada waxaa ku xigay dadka xujaajta iyaguna qayb iska soo saareen way fadhiisanayaan inta kale baxayaan waxaa ku xigay wasiirada qayb iska soo saareen way fadhiisanayaan inta kale baxayaan waxaa ku xigay emiirada qayb iska soo saareen inta kale baxayaan waxaa ku xigay sarkaalada qayb kamid ah fadhiisan inta kale baxayaan inta kalena waa qayb kale la sii macnayn de intaasuu sii macneeyey cuntay markaa la cunayaa hadday cuntada uu sheekhu uu qayb kamida nin kamida amba dad kamida raggaas inuu sharfo wuu uga dhex yeelaya dadkaasi isagay la cunayaan marka dadkana waxaa loo kala hor cunayaa buuri oo cuntada loo hor dhigayaa ma kala hor cunaya laakiin de cuntada loo kala hor serving loogu samaynaya cuntada loo hor dhigayaa si uu soo kala hor galeen ma fahantay haye way la wada cunaya okay marka saa loo cunay cuntadii la cunay the sheikh then goes into his residence sheekh wuu baxayaa wuxuu galayaa gurigiisa qasrigiisu galayaa and the qadi dhegaysta hadda waa kan ila shicibkii waxay u yimaadeen yaa imika la qabanaya and the qadi with the viziers the private secretary and 4 of the principal emir sit for deciding cases among the population and petitioner intaasi sadarka quraata waxa laga sameyn karaaba maamulka idilbaba si loo dhiso waa kan qarnigii 3 wuxuu yahay qaadigii xeerlaalihi guud waa ninkii ka madax banaa dadka oo dhan ee u xirfad lahaa cilmiga sharciga qaadigii wasiirka arrimaha dibadda ahaado wasiirkii difaacda wasiirada oo dhan
the private secretary xogayaha u gaarka sheekha ee u qora iyo 4 ka mida emiirada waxay u fadhiisanayaan shicibka u yimid deciding cases among the population and petitioner hadda garti la galay dadkii shicibkii 2 qof ee haysta 2 qof ee amba wax sameeyay dadkii ciqaabta laga mariyay dadkii wax garta ku kala garka helay hadda shaaricaas hal qof iyo suuq madow iyo meel madow iyo ruqad madow nin la gala ma aha halkaasi baa lagu qaadaya garta raggaasana qaadaya ninkaa ka madax bannaan xeralaha guud wasiirada xogayaha gaarka ee sheekha iyo 4 emiir way fadhiisanayaan gartay bilaabayaan garta see loo qaadaa amba kaysaska see loo qaadaa dadka lagu kala maamulayo dhageysta every case that is concerned with the ruling of the divine law is decided by the qadi and all cases other than those are decided by the member of the council that is to say the wazir and the emirs wax aliyata wixii ku saabsan arrin diimeed la isku haysto arrin diimeed baba la isku haystaaba laba wadaad baa is haysta wax diin ku saabsan hadda imika sida qarnigii 13 dadku xiraan salafi hab dhaqankeena ku noqon salaf kelmado af carabi dadku iska soo ergidaan ay dhulka la dhacaanay kolba si doona sarfan ma haddana asalkeena ku noqon waka asalkeen al-salaf sida dadka loo dhaqmo wakaasi waar wixii diin ku saabsanaa ee arrin diimeed ninkaasi xeer ilaaliyaha guud ee loo keenay consultancy isaga loo keensadayba loo sooba kareystaba masar loo keensaday yaa isagu qaadaya wixii diin ku saabsan and all cases other than those that are decided are decided by the member of the councils wixii diin ka baxsan ee tahay waxyaabo madaniya common law arrimo dibadeed hadday tahay arrimo ciidan hadday tahay arrimo dhaqan hadday tahay arrimo ka baxsan wixii de loo yaqaano madani waxa qaadanaya oo go'aan ka qaadaya go'aan ka soo gaaraya council nin quraata maaha dadkaasi loo sameeyey xerbegtigaasi loo sameeyey ee ka samaysan wasiirada iyo amiirada oo wada fadhiistay iyo ka qaadaya qaraar shicibkii bay markaasi nin kastaba oo wax lahaade halkaasaa lagu gartiisa lagu goynaya waayahay in any cases calls for consultation of the sultan hadday arrin qaadigii baa qaaday arrin diiniya waa lagu diiday amba waa laisku qabsaday amba arrintii madaniga ee councilka xerbegtigu ay shicibka u kala goynayeen ee xaqiga u kala sooreen amba ciqaabtooda marinayeen laisku qabsado waxaa la sameynayaa they write to him sheekha loo qoraya keiskii baa la qaadaya dusha sare laga qoraya keiski wuxuu ahaa sheekhii waana laisku qabsaday wixii go'aamadii kasoo jeediyeen xerbegtiga kooxdaasi yaa lagu qoraya amba qaadigu wuxuu kasoo yiri baa lagu dul qoraya keiski baa loo qoraya sheekha loo geynaya they write to him about it and he send out the reply to them immediately on the reverse of the document as determined by his judgment, and that is their fixed custom. Case kala isku qabsado dusha sare waa loo geenaya qaadiga ma waxaa loo geenaya sheekha halka dambe keiskii warqadii xaashadii wixii la isku haysto halka dambe ayuu markuu akhriyo ayuu sheekhu ka soo qoraya go'aankaasi isla markaasi buu go'aanku sheekhu soo qadan isla markaas sugnay ila shicibkii baa sugayay ma aha sheekh oranaya waan soo qayilayaa ma aha waa sheekh oranaya waan soo tukanayaa ma aha sheekh oranaya sheeka kala imanaya sheekh waxa weyn sheekh shaqada shicibkiisa u heegan isla markaas soo celinaya ila ayaantaasi shaqada wuxuu fadhiya gurigiisa wuxuu fadhiya arrimaha ay isku qabsadaan
dadkaasi dadka u xirfadaysan qaadiga hadduu yahay amba hadduu yahay wasiiradiisi iyo amiiradiisu ay u fadhiistaan isku qabsan iyo isaguna xakaa u fadhiya ay soo gaadhaysa exceptional caseka arrimaha iyaga ka baxsan isla markaas uu qaraar soo qaadanaya wana qaraarkaasi waxa lagu dhaqmayo shicibkii markaa maxay heleen cadaaladii oona ahayn cadaalad hoosaaneed amba qof loo xagliyey waa cadaalad cad dad ay ka soo u fadhiisteen wasiiradii iyo amiiradii ay gooyeen arrimaha madaniga qaadigu isagoo dadkoo dhan ay maqlayaan guddigaasi la joogaan isaguna uu geenay arrimaha diiniga isaguna qaraar ka qaadanay arrimaha la isku qabsana sheekhu uu fadhiyo uu warqad xaggaas isla ayaantaas isla markaaba soo celinayo go'aankiisa go'aankaasa saasa shicibka lagu kala go'aamiya ibn Battuta markaa wuxuu qoray and this is too is their fixed custom tanina waxa weeyaan buri waa dhaqan iyaga oo gaara Soomaalida dhaqan u gaara maamul u gaara ibn Battuta markaasuu ka baxay Muqdisho wuxuuna tegay dhulka Sawaaxiliinta saaxil waxa loo yaqaano sawaaxil heebaha halkaasi waxaan ka tusnay buugguna hoos aan ku soo qoray aad kala dejisan kartiin hab dhaqanka maamul wanaagga ka jirtay 700 sano horteed dhulka Soomaalida xogtuna toos laga soo waramay ibn Battuta uu ka soo qoray qarnigii 13 shicibka iyo dadka dhageysanayay amba dadka buugga la degay akhrisay iyay hadda u taalaa inay wax ka bartaan ka doodaan hadda qarniga 21aad halkan taagan ay isbarbar dhigaan 700 oo sanadood dawladaha iyo dhaca la yiraahdaa dawladahan 30 sano iyo waa 700 oo sanadood yaa maamul lagu daydo uu dhulku lahaa wabillahi tawfiiq